daawo muuqaalka qiso cajiib oo dhacday isla markaasna laga sameeyay muuqaalkan. Haddaba qisadan ayaa ah qiso dhab ah oo dhacday oo laga sameeyay muuqaalkan si ay bulshadu u daawadaan. Waxaa jiray laba wiil oo walaalo ah oo ay dhashay hooyo faqiira ama ka soo jeeda qoys faqiira. Labada wiil ayaa waxa la awoodi waayay in hal mar lagu wada daro iskuulka si ay u wada dhigtaan. Reerkaas ayaa wuxuu awoodi kaliya inuu hal wiil geeyo iskuulka, isla markaasna agabka looga baahan yahay buugta, kabaha iyo shandada u iibiyo, kaasoo ay sameeyeen si ay xeega ku noqoto. Haddaba maxay sameeyeen? Mid ka mid ah labadii wiil ayay ku dareen iskuulka, maadaama halka wiil iyo wiilka kale ay isu eg yihiin. Waxaa jiray xilliga bireega loo yaqaano ama nusu saacaha ayay isbedeli jireen labadaas wiil oo uu ka kale soo bedeli jiray walaalkiisa kale si uu inta ka hadhay xiisadaha u qaato, iyadoo oo ay iskuulkaas caado u ahayd ardayga ka habsaamo xiisadiisa isla markaasna uu macallinku ka horgalo in gacanta uu dhigto oo halkaas lagu mursiyo ciqaabo ah 5 dhingadood, taasoo qasab ku ah inuu labada wiil hadba ka gelinka hore taga maahane ka kala uu ciqaabta amito. Halka ay ardaydu soo qaateen nusu saace iyo cunto, isagoo wuxuu ag fadhiisan jiray isagoo orod ku soo qaatay si uu soo bedelo walaalkii, isla markaasna dhingada xanuun leh ay ka hafiifanayaan gamciisa. Haddaba qisadan sidan u dhacday markan waxaa la gelayaa iskuulkii, waxaana ay ardaydu ka soo baxeen nusu saace, balse isagu wuxuu soo bedelayaa walaalkii. Waad aragtaa uu ordayaa, wuxuu ku dhamaysanayaa xiiq iyo daal uu sii socdo. xiisadihiina ma wada qaadanay, bar buu qaatay. hooyadii waxay ula diyaar tahay inay soo bedesho wiilkeeda iyadoo si degdeg uga saaraysa inankan oo markuu tago sida aad arkaysid mudan doona dhangadihii kana uu mudanayo xiiqitaankii. qisadan ayaa qiso aad u cajiib ah isla markaasna ka turjumaysa waxyaabo fara badan oo aanay bulshadu ka diyaarsanayn. macallinka ayaa markastaba la diyaara ka habsaama inuu dhangad la dhaco, taasoo ah xeerkan ardayda lagu abaal marinayo inaanay habsaamin oo aanu macallinka ka horgelin. waa kan ardaygii oo dhiganaya dhangadihii. ardayda kale way faraxsan yihiin. markan waa maalintii labaad ee lagu metelay muuqaalka. jiliskii ayaa dhacaya sidii markii horeba aad arkaysay, wuxuuna u cararayaa walaalkiisa u soo bedelo. haddaba maanta maxaa dhici doona? halkan waxaad aragtaa waxaa maraya macallinkii oo gaari wata. wuxuu la kulmay qisadii wiilkii oo ordaya. macallinkii wuxuu la yaabay wuxuu ku ordayo, laakiinse wuxuu ka arkay albaabkii jingada ahaa ee deganaa reerka faqiirka waxa la kala bedelayo, isagoo aad ula yaabay. maanta wuxuu ogaaday xaqiiqda iyo wiilkii uu dili jiray waxa dhici doona. macallinkii wuxuu tegay iskuulkii, waxaana ka daba yimi wiilkii oo soo daalay. laakiinse maanta maalintii hore maaha. muxuu samayn doonaa macallinkii? macallinkii wuxuu sameeyey qiiro iyo murugo fara badan, wuxuuna dhunkanayaa wiilkii uu maalin kasta dili jiray la'annahu waxaanu ogeyn xaqiiqadu siday tahay. maanta maalintii ka dambaysay waxaa la ogaaday xaqiiqadan labada wiil ee mataana ah, taasoo sababtay inuu macallinkaasi ka ooyo waxyaabuhu samayn jiray ee aanu ogeyn xaqiiqada. haddaba ma og tahay in dadka iskuulka kula dhigta ama dadweynahaad istaqaanaan in ka mida aanad xaaladooda warhayn? qisadana waxay si wanaagsan u taabanaysaa macallimiinta iyo maamulayaasha iskuullada oo ubadku ay wax u dhigaan aan in badan ka warhayn xaaladday ku nool yihiin ama xaaladda ay gurigoodii kaga soo tooseen. waxaa jiri kara markaad macallin tahay in ardayda in ka mid oo aad u aragtid saaqidiin ama aan fahmi karin casharada la dhigayo aad u aragtid in ay yihiin saaqidiin, balse kama warhaysid xaaladda ay gurigooda kula kulinsaan ama dhibaatada qoys ee haysata. in badan oo bulshada ka mid a ama dadka kugu hareera noola xaaladooda kama warhaysid, taasoo sababta in aad dembiye ka gashid. haddaba xaaladan ayaa ah mid ku qayb qaadasho ah ama dadweynuhu ay wax ku qaadan karaan. haddaba walaal u sii gudbi walaalaha kale ee muslimiinta ah si aad u ogaatid in malin kastaba hareerahaaga ay ka dhacaan waxyaabo fara badan oo haddii aad ogaan lahayd aad ooyi lahayd. muuqaalkana shargare. mahadsanid. waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey, barnaamijyo taabanaya noloshaada iyo madadaalo dhalinyarada.